haddii sanadka 2025 aad rabto in aad 50 kiilo iska dhinto dabcan koobka qaxbaha soo qaado 6 daqiiqana dhagahaaga isi insha Allah taala maanta waxaan kula qaybsan doonaa aniga shakhsiyan kula hadlayo haddii aan rabo miisaanka inta la eg in aan rido wadada aan mari lahaa amaba ardaydeyda aan u isticmaali lahaa waxa qorshahan mamnuuc ka ah marka koowaad in gaajo la isku dilo marka labaadna in waxyaabo sir ah uu qofka isticmaalo sida qofka waaga markuu u bari inuu cabo liin iyo sanjabiil iyo awo supplement gooni ah oo loogu talagalay inay faatka baan garayso waxaan kula wadaagi doonaa hab cilmiyeysan dabcan seyniskana waafaqsan marka hore aan tiirka u taagno hadafka luminta 1 ilaa 2 kiilo isbuuciyo dhan waa waxa aan rabno inaan diiradda saarno hal sano gudaheeda taas waxay noqonaysaa isbuuca dabcan sanadkii waa 52 isbuuc marka aad ku dhufato 1 kiilo ina isbuuc walba rido waxay imaanaysaa 52 kiilo oo ah hadafka ama goolka aan isha ku hayno 2025 in aan ridno xusuusnow todobaadyada qaar waxaad lumin kartaa 1 kiilo iyo wixii ka badan halka todobaadyada qaar ay macquul tahay kiiladii goolkaaga ahayd in aad gaari weyso laakiin furuhu waa joogteynta iyo processka in aad ku raaxaysato ma ahan kaliya in aad miisaanka rido si isbedelkan aad u samayso waxaan diiradda saari doonaa 4 meel oo aad muhiim u ah nafaqada oo ah nutritionka jimicsiga dabcan fitnesska maareynta walbahaarka oo stresska ah iyo maskaxdaada dabcan mindsetka mid walbana waan dul istaagi doonaa qodobka ugu horeeya waxaan ugu magac daray nadiifinta cuntada maxaan nadiifinaynaa marka hore isku day in aad faraha ka qaado ama aad ka dhex baxdo cunooyinka warshadaysan iyo cabitaanada macaanka ah ee aad og tahay sokorta caadiga ah in kor looga shubay amaba sokor tiro badan inay ximbaarsan yihiin adiguba ay ka dhaadhacsan tahay diiradaadu mar walba ha saarnaato carbohydrate-ka wanaagsan dabcan kan loogu yeero complex carbohydrate-ka batata macaanka baradhada iyo bariiska brown-ka ah proteinada sida shafka digaaga kalluunka hilibka geela yana ayaguna meesha ka marneen dufun hada u baahadana avocadada saliid zaytuunka iyo looska kaaga filan isticmaal applicationada sida MyFitnessPal oo kaleete haddii aad rabto in aad ka warhayso waxa jirkaaga galayo ama dabcan aad rabto inaad kontrolsho nafaqada ama calorieska jirkaaga galayso waa haddii aad aqoon u leedahay ama aad fahmaysid applicationada sida loo isticmaalo laakiin haddii aadan awood u lahayn still xalaad helaysaa isku day mar walba aad cunto cunayso cuntada gramkeeda inaad google-ka geliso weydiisidna inta calories ee ku jirta applicationadan waxay ka caawinayaan kow inaad hawshaada joogtayso labo in adigoonan gaajo dareemin still jirkaaga nafaqooyinka uu u baahan yahay uu helo cuntada waxaan kusoo gabagabeynaynaa marka haddii aadan reere snack ahayn haddii mar walba aadan jeclayn inuu afkaaga ay cunto ku jirto baroway intermittent fastingka dib u dhig quraacdaada maalinkii isku day mar walba cishaha markii aad tukato inay cashada kuugu dambayso maalinkii kalena quraacdaada inaad u sikiso ilaa duhurka laga gaarayo intermittent fastingku laba shayba wuu kugu caawinayaa shayga koowaad in dareenka insulinka uu hoos u dhigo labo in dabcan kaloriyada jirkaaga galayana ay hoos u dhacaan jimicsiga marka aan qodobka labaad ka dhigno jimicsigu muhiimadiisu ma ahan in calories aad gubto jimicsigu muhiimadiisu waa in awoodaada aad dhisto strength-ka wax loo yaqaano in aad kor u soo qaado sidoo kaleetana caafimaadkaaga guudna aad ku hagaajiso dad badan aad jimicsiga mooda kaliya gymka in loo tago in calories lagu gubo samee tababarada gaar ahaan kuwa lagu kobciyo murqaha ee loo yaqaano strength trainingka markay ugu yar tahay 3 jeer isbuuci adigoo isticmaalaya dabcan jadwalka ugu wanaagsan ee loo yaqaana push pull legs dabcan haddii aadan aqoon badan u lahaynna video ayaan idinkaga soo samaynayaa commentiga iigu reeba progressive overload-ka haddii aad rag tahay iyo haddii aad dumar tahayba in aad mar walba isku daydo agabka aad ku train gareynaysid ama biraha aad isticmaalaysid culeyskooda in aad kordhiso waxay ka caawinaysaa in murqahaaga ay degdeg u koraan
ugu mar walba uu muruqaaga korana xitaa haddii aad cuntada kaleete bariiska aad jeceshahay jirkaagu wuxuu helayaa saxan weyn uu carbohydrate-ka uu ku xambaari karo ogow markuu jirku muruqaha ay ku yar yihiin aaday u adag tahay in jirkaaga carbohydrate-ka soo galo uu xakameeyo waana sababta keenayso in carbohydrate-ka lagaaga dhigo fat baraxan laakiin marka muruqaha aad dhisto rag iyo dumar waxa rabto noqo duq ama nin dhalinyaro ah noqo muruqa wuxuu ka caawinayaa in carbohydrate-ka soo galay jirkaaga qayb kamid ah uu asaga xambaaro bal aanan fat lagaaga dhigin soco ugu yaraan maalinkii 8,000 oo talaab ah dabcan adoo muhiimaduna ay tahay in aad calorieska inta ugu badan aad gubto waxaad ogaataa socodku wuxuu ka qayb qaataa ama uu ka mid yahay waxyaabaha inta badan faatka sida goonida ah u target gareeyo marka laga hadlayo calamitooyinka cardio-ga loo yaqaano orodku dabcan sokor iyo faat isla socota yaa lagu gubaa laakiin socodku kaliya faatka lagu gubaa haddii heerka stresska jirkaaga ogol yahay waxaad ku dartaa calamitooyinka loo yaqaano heatka ama high intensity interval trainingka hal maalin ama 2 maalin asbuuci way aan ku leeyahay marka haddii jirkaaga ogol yahay ama stress levelkaaga ogol yahay sababtoo ah haddii jimki aad 3 biraha aad ku train gareyso dabcan 8,000 oo talaabna aad maalin walba soconayso waxa aad u adkaanaysa in calaamito kale aad jirkaaga ugu darto haddii marka stresska uu jirkaaga ku bado dad baa aaminsan stresska inuu madaxa kaliya ka yimaado laakiin marka jirkaaga calamitooyinka ay ku badato wuu stressaa wuxuuna keenaa inuu plateau galo dabcan uu horay u dhaqaaqi waayo haddii aad miisaan ridaysid iyo haddii aad isku kordhinaysay heatku waa calamitooyinka loo yaqaana inta badan waqtiga kooban la sameeyo haddaad rabto treadmill-ka miisaanka lagu ordo kor haddii aad rabtidna baaskiilka kor haddaad rabtana barbiska calamitooyinka la yiraahdo sameey oo cardio-ga caadiga ah muhiimadu waa in heart rate-kaaga ama garaaca wadnahaaga aad kor u qaado daqiiqad halka daqiiqada kaleetana aad dejinaysid aad hoos u dhigayso adigoo ku nasanaya loomana baahna 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo inuu ka bato waa kaliya inta lagaaga baahan yahay xakameynta stresska marka haddii waxaad ogaataa jirkaaga uu stress tiro badan ku fuduran yahay waxa aad u adkaanaysa process walba uu sameynayo inuu progress gareeyo inuu isbedelo inuu miisaan rida ama xataa miisaan oo isku kobciyo stresskaas aawadiis walbahaarku wuxuu saameeyaa hormonaadka taasoo keenta xitaa haddii nafaqadaadu ay wanaagsan tahay sidoo kaleetana aad si wanaagsan u jimicsanaysid in stiil wax isbedelo uu jirkaaga ku dhici waayo sidee marka u maareyn kartaa stresska kow hurdo kugu filan hel waxaad ogaataa stress walba ku haysta haddii habeenkii 8 saacadood aad hurdo calal aqali wuu kaa deganayaa 2 caffeine-ka aad u yaray haddaad tahay dadka caffeine-ka aad u caba isku day 1 ilaa 2 koob oo kafee ah maalinkii ka badan inaadan cabin haddii aad tahayna dadka pre-workout-ka isticmaala khaasatan jimka inta aynan gelin ka hor energy-ga la cabo wuxuu raba ha noqdo enerjiyada caadiga la caba ha noqdaan sida Red Bull oo kaleete ama ha noqdo pre-workout aad soo gadatay oo aad ugu talagashay inaad energy ku hesho ogow caffeine-kaas ka soo galayo still iyo caffeine-ka aad cabaysid waad isku mid inaad yaraysid oo midkood dabcan suuxiina koob kafee iska cab hadhowna pre-workout-kaaga aad isticmaashid isku day laakiin aysan kaa noqonin 3 koob oo kafee ah iyo sidoo kale pre-workout-ka inaad meesha kusoo darto qaxwada sida badan jirkaaga stress ku abuuraysa waqti ku qaado socodka khaasatan kan banaanka ah si aad stresskaaga u xakamayso ku dar jadwalkaaga waqtiyo free ah oo aadan waxba qabanaynin dabcan kaligaaga aad naftaada isla qaadanaysid waa halka inta badan Soomaalidu ay yaraysato waxaad ogaataa dadkan aad arkaysid adduunka mar walba fikirka cusub la yimaado waa dad inta badan waqtiyada qaar noloshooda naftooda la qaata isku day marka mararka qaar xitaa 1 saac 30 daqiiqo ama 15 daqiiqo haddii aad heli karto waqti aad naftaada iyo adigu aad gooni isku noqonaysaan inaad heli karayso kama dambeynna mindset-ka waxaad ogaataa xariga isku xiraya adiga iyo halka aad u socoto waa hab fikirkaaga dhimista 50 kiilo dabcan waa sida orodka loo yaqaan marathon ko kaleete oo aad ogtihiin
intaasoo kilomitir qofku inuu ordayo haddana waqti badan uu gelinayo. ma ahan waxa sprintiga loo yaqaan ama orodka 100 kilomitir oo kale ma ahan oo halka mar qofka uu fakatax dhahayo guushana uu soo taabanayo. mar walba oo maskaxdaada ay su'aal ka keento goolkan iyo halkan aad u socoto isku day su'aashaas inaad ayada ku celiso oo aad weydiiso sababta ay marka hore u bilowday. haddii aadan haysanin sabab ku cajab gelisa sabab awood leh oo ku dhaqaajin karta waxa aad u sahlanaanaya inaad safarka ka harto. haddii hadda xataa aadan sabab haysanin isku day inaad samaysato. ma caafimaad baad raadinaysaa? ma dhakhtar baa kugu dhahay dabcan diabetic aad kharka u saaran tahay? ma already macaan baa ku hayo oo aad iska ciyaaraysaa? ma caafimaadkaaga guud aad rabtaa inaad bedesho? ma jirkaad rabtaa inaad quruxsato oo aad dadka kale ka soconaato? goolkaagu waa maxay? meel ku qoro kadibna fiiri subax walba markuu waaga kuu baryo iyo habeenkii inta aadan seexanin. samayso hal ku dhig si maalmaha qaar ee ka jajaban tahay aad naftaada ugu soo kiciso. waxaad uma ogaataa codka adiga ka soo baxaya ee dhagahaaga aad maqashiinaysid khaasatan markaad miraayada hor taagan tahay ama marka aad keligaaga tahay saameyn balaaran oo ku yeesha maskaxda. anaga laakiin ka Soomaali ahaan si kalaan u aragnaa qofku inuu waalan yahay inuu uusan wax macno lahayn aysan ku fadhinin gaalada samayso. wallahi alcadiim haddii aad 3 subax intaad soo kacdo cod aad adigu maqlaysa aad isku la hadasho adoo is dhiirigelinaya waxaad ka dareemaysaa qalbigaaga dhaqaaqiisa inaad maalinkaas raboonayso inaad wax badan qabato. diirada saar habka aad wax u sameynayso laakiin ma ahan natiijada ka imaanayso. haddii mararka qaar aad xitaa ku guuleysato 1 litir oo biyo ah inaad maalin dhan cabto adoonan biyo cabi jirin isku day inaad celebrate gareyso inaad ku faraxdo naftaadan aad u hambaliyeyso si maalinka kaleete litarka iyo barka biyaha aad u soo gaarsiiso. dabcan haddii isbuuc aad dhameysato kaleete inaad jiimka si toos ah u tagtay cuntadina aad saxday haddana sidoo kale maalin sameyso oo aad celebrate gareynaysid. marka aan ku leeyahay aad celebrate gareynaysidna ha isku tarax tagin adoo ma isbuucii oo dhan wax wanaagsan soo sameynayay hal maalin intaad meel tagto khashin oo dhan ha ka dhargin. dabcan waxyaabaha loogu yeero cheat day-ga gabagaba marka ogow adigana waad awoodaa qof walbana wuu awoodi karaa. waxaan kula qaybsaday qorshaha 2025 ah haddii aad diirada saarto 50 kiilo ee ku saaran aad meel uga soo harayso. dabcan haddii aad nagu cusub tahay oo marka ugu horeysay ee aad soo booqanayso halkan ay tahay fadlan subscribe noo saar si fiidiyoyada soo socota ee aan caafimaadka iyo fitnesska aan uga hadlayna aad uga faa'iideysato. haddii markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii afraad aad nala joogto oo aad dadka walaalaha inagu xiran aad ka mid tahayna like videoga saar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.